السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وواضح آدي هذا وما سنتهين وأربعه سجالي توانكا بش سدحاد ماج سنة كلابا كون يشان يلا باتنكا وردك دجها يا الصود عي هواني دي ملاحظة كهيد أوركي فيلنا والفيوجر إيمي باك يا سالم سعيد وكم إذا هامل كلياشة مقايد السفاري وكنت على مجالات منيابلس أي حربكتي دي دمام بالدنبية دي لوسو إيدي أي كهلين sida aan muuqaalkii hore idinku sheegaba saaka sagaalkii subaxnimo ayaa xeerbeegtida kiiska gacanta loo geliyay oo garsoore Nancy Brassel ay gacanta u gelisay wax ka yar muddo 6 saacadood ah ayayba go'aankooda ay kula soo laabteen waxaana go'aankii uu noqday in dhammaanba dambiyadii lagu soo eedeeyay Amy Bark iyo Salim Saeed dhammaantoodba lagu helay horta waxa xeerbeegtidu ay ka koobnaayeen 6 dumar ah iyo 9 rag ah iyadoo sidoo kalena ay jireen 2 rag iyo 1 dumar oo iyagu kaydka fadhiya lacala hadii qof xanuunsado loogu talagalay in ay bedelaan marka sida muuqato hadda markii maxkamadan ay socotay ku dhawaad muddo 5 toddobaad ah isla markaana 32 marqaati la dhageystay 20 maalmood oo kaliyana marqaatiyada la dhageysanayay ayaa ugu dambeyntii kiiskan uu soo gabagaboobay oo dambigii lagu helay Amy Bark iyo waliba Salim Saeed Amy Bark oo 44 jir ah 7 dambi ayaa lagu soo eedeeyay lacag 2 milyan ah ayaa lagu eedeynayay inay musuqmaasuq ahaan u qaadatay Salim Saeed oo 36 jir ahna isaga 21 dambi ayaa lagu soo eedeeyay 16 milyan oo lacag ah ayaana musuqmaasuq ahaan u qaatay haddaba xeerbeegtidu marka kiiska gacanta loo geliyo maadaama ay dhageysanayeen muddadii 5 toddobaad ahayd oo dacwadan ay socotay marqaatiyaasha kala duwanna maxkamadda la soo saarayay cadeymaha fara badan dacwadogayaasha ay soo bandhigayeen ayaa waxayba go'aankooda ku gaareen wax ka yar muddo 6 saacadood ah 9kii subaxnimo ayaa loo dhiibay ka hor 8 saac oo duhurnimo inta aan la gaarinaba waxay yiraahdeen go'aankeena waan gaarnay marka xeerbeegtidu ay go'aan ka gaarto garsooraha ayay ku soo wargelinayaan garsooruhuna waxa uu u sheegayaa dacwadogayaasha qareenada eedeysanayaasha difaacaya eedeysanayaasha iyo haddii ay jiraan dad ka soo qayb galayba in ay xeerbeegtidu go'aan gaareen markaasi kadib go'aankooda ayay soo gudbinayaan halkaasi ayaa laga akhrinaya waxaa horeysay Amy Bark oo 7 dambi ku eedeysneed 7 dambiba waa lagu helay guilty ayaa la yiri marka 7 dambi waxa ay kala hayeen hal dambi oo ah in ay isku dayeysay khiyaano ah wire fraud wax la yiraahdo iyo sidoo kalena 4 dambi oo iyaguna wire fraud ah waxa sidoo kale lagu helay 2 dambi oo ah khiyaano isku daya barnaamijkii federaalka ahaa laaluush qaadasho ayaa sidoo kale 2 dambi ayaa lagu helay sidaasi ayaa 7 dambi ee lagu helay Amy Bark ee ahaayeen Salim Saeed ayaa soo haray Salim Saeed isaga 21 dambi ayuu ku eedeysnaa 21kii dambiba waa lagu wada helay waxa ay ahaayeen dambiga koobaad oo lagu helay in uu ahay khiyaano isku day wire fraud waxa la yiraahdaa lacagaha qofku la isku xawilayo ama la isku dirayo oo meelo kala duwan qofku uu dirayo sidoo kalena waxa jirtay 4 dambi oo wire fraud ah in lagu helay 11 dambi oo sidoo kale waxa lagu helay oo ah laaluush barnaamijyada dawladda federaalka ah ay bixinaysay 5 dambina waxa lagu helay money laundering oo ah isdabamarin lacageed oo 5 dambi ahna waa lagu helay isla markiiba la aqriyay dambiyadaasi in lagu helay waxa uu garsooruhu amray in aan la sii daan karin hadda sidaan ogeyn Amy Bark iyo Salim Saeed maalin kastaba gurigooda ay aadayeen subaxiina maxkamadda ay imaanayeen galabtiina waa ay ka tagayeen markii dhammaanba dambiyadii lagu helay garsoore Nancy Brassel waxa ay tiri heerka uu ileeg yihiin dambiyadan waxa ay amartay in la xiro Amy Bark oo ilmeynaysa ayaa la arkayay markii dambiyadaasi la aqrinayay oo iyada lagu helay isla markaana waa la jeebeeyay xabsiga ayaana loo dhaadhiciyay waxa la leeyahay in mid kastaba in ka badan 30 sano oo xabsiya ayuu mutaysan karaa marka ilaa iyo xukunkooda oo garsooruhu uu go'aan ka gaarayo waqtiga la xukumi doono xabsiga ayay ku sii jiri doonaan Amy Bark iyo Salim Saeed dhammaanba dambiyadii lagu soo eedeeyayna waa lagu helay isla markii markaa oo dambigii lagu helay xabsigana loo dhaadhiciyay ayaa waxa shir jaraa'id qabtay xeer ilaaliyaashii dawladda federaalka ah ee dambiga ku soo oogay Amy Bark iyo Salim Saeed It is my privilege to announce the guilty verdicts in the case of United States versus Amy Bark and Salim Saeed. Today, after 6 weeks of trial, the jury delivered a quick and unequivocal verdict.
guilty on every single count. As you know, Amy Bach masterminded a $250 million fraud scheme. It was the largest COVID fraud scheme in the country. And what Bach and her co-defendants did was reprehensible. During COVID, while so many were trying to be helpers, Bach and Saeed were thieves. They used a time of crisis as their golden opportunity to enrich themselves and their criminal partners. Outlandishly so. And every step of the way, Bach fought to keep her fraud scheme going. Today, her efforts to lie, to blame others, to escape responsibility, all came to an end. At the conclusion of today's hearing, Judge Nancy Brazel took both Saeed and Bach into custody, and we look forward to sentencing. labada qof waxaa loo arkayay labada qof ee ugu muhiimsan kiiskan Feeding Our Future oo lacagta 250 milyan oo xilligii coronavirus-ka loogu talagalay caruurta in lagu quudiyo la musuqmaasuqay sidaba dacwadan laga sheegay oo nambara beena tira beena oo caruur aan cunto la siinin la soo dirsanayay lacagtana ay Feeding Our Future ay u direysay nambaradaasi ama magacyadaasi faalsada ama tiradaasi faalsada wasaaradda waxbarashada markay lacagta u soo dirto Feeding Our Future-na kadibna ay dadkan sheeganayeen in caruur quudinayaan Feeding Our Future ay lacagta ay u direysay marka waxa shirka jaraa'id qabtay dhammaanba sida sawirka ka aragtaan xeer ilaaliyaashii dacwadan soo oogay oo dowladda federaalka ka socday waxa uu hadlay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Joe Thompson waxana uu yiri waan ku kalsoonayn kiiskeena cadeymo macquul ahna waa soo bandhignay laakiin sidoo kale inkastoo ay la yaab noqotay sida degdega ah ee xeerbeegtidu ay go'aankooda ula soo laabteen laakiin haddana kiiskeena waan ku kalsoonayn oo wuxuu ahaa kiis macquula cadeymo macquulana waa soo bandhignay Joe Thompson ayaa sidoo kale su'aal ahayd waxa la weydiiyay dadka iyagu wadanka ka baxsaday ka war ilaa hadda 3 qof oo Soomaali ah ayaa wadanka ka baxsatay oo Cabdikariin Iidle Saciid Arag iyo waliba Najma Axmed waxa uu yiri maadaama dadkaas iyagoo maqan dacwad lagu soo oogay meel kasta oo ay jiraan waxaan isku dayi doonaa inaan soo qabanno isla markaana cadaaladda aan horkeeno marka Joe Thompson waxa uu sidoo kale intaasi uu ku daray dadkan waxa uu yiri musuqmaasuq bareer ah ayay sameeyeen waxana sidoo kale uu yiri barnaamijyo loogu talagalay caruur u baahan cunto in lagu quudiyo ayay musuqmaasuqeen waxayna ka faa'iideysteen pandemigii ugu weynaa ee caalamka ka dhacay sidaas darteed waxay sameeyeen musuqmaasuqii ugu ballaarnaa ee ebed taariikhda wadanka Mareykanka laga sameeyo marka sidaas darteed wuxuu yiri waynu ku faraxsanahay haddii aan nahay xeer ilaaliyaashii dowladda ka socday in dhammaanba dacwadihii aan ku soo ognay labadan qof oo ah Amy Bach oo haweeneyda madaxda ka ahayd ururka Feeding Our Future iyo Salim Saciid oo milkiilayaasha maqaayadda Safari Restaurant ka mid ahaa in ayagana sidoo kale dambigii lagu helay waan ku faraxsanahay uu yiri waa qaybtii labaad ee dadkii 70 qof ee dacwad inta lagu soo oogo haddana dambi lagu helo waxaan ogeyn bilihii May ilaa iyo June sanadkii hore in 7 qof dambi lagu soo oogay 2 kamida dambi lagu waayay 5 lagu helay 5taasina 3 ayaa wali hadda xukun sugayaalaha oo xabsiga ku jiro 2na waa tii la xukumay marka waxay noqonayaan qaybtii labaad ee sidoo kale iyagana dambi lagu soo oogo waxana uu sheegay sidoo kale inay jiri doonaan dad kale oo bilaha soo socda iyagana maxkamadooda ay bilaaban doonto oo kamid ah 70kii qof ee kiiskan Feeding Our Future dacwada lagu soo oogay sida hadda muuqata 7 qof ayaa dambi lagu helay 2 waa la xukumay sidoo kalena waxaa muuqata in hadda 5 ay xukun sugayaal ay yihiin oo dambigii lagu helay laakiin xabsi ay ku jiraan oo labadan ay ugu dambeysay 37 kamidana dambigooda ayay qirteen qofku markuu dambigiisa qirto xukunka waa laga qafiifinayaa garsooraha ayaana go'aan ka gaaraya inta sano ee lagu xukumayo hadba waxa ay inta uu musuqmaasuqa ay lacagta ay waxyaabaha ay musuqmaasuqeen la ekayd ayaa sidoo kale in lagu xukumi doona waxa sidoo kale maanta markii shirka jaraa'id ay qabteen oo xukunka dambiga lagu helay Amy Bach iyo Salim Saciid Joe Thompson xeer ilaaliyaha markii shirka jaraa'id uu qabtay waxa kamid ah su'aalaha la weydiiyay lacagtii 250 milyan ahayd ilaa hadda meeqa ay dowladdu soo celisay waxa weeye lacag ilaa iyo 60 milyan kor u dhaafaysa ayaan ilaa hadda soo celinay lacagahaasi waxyaabaha laga soo celiyay waxay tahay
dadkii qaar bangiyadoodii lacagtii ku jirtay lagala baxay haddii ay guryo iibsadeen guryihii lagala laabtay gawaari hadday iibsadeen iyo waxyaabo la isku qurxiyay hadday iibsadeenba dhammaanba dowladdu ay dib uga qaaday islamarkaana ay dib u xaraashtay marka xilliga la xukumayo Amy Bak iyo Salim Saciid garsoore Nancy Brazel ayaa go'aan ka gaari doonto wayna arki doonaa haddii alla idmo laakiin dhammaanba dambiyadii lagu soo oogay Salim Saciid iyo Amy Bak dhammaantoodba dambigii waa lagu wada helay oo ma aysan jirin wax dambiya oo lagu waayay aad iyo aad u mahadsantiin asxaab